madaxweynuhu isaga dantiisa soo socda waxa lagu leeyahay Tansaaniya hadda waxa jiray hoteelo isagu lahaay hore looga xiro soo furtay ma garad hoteeladii iyo ganacsigiisii uu wataa madaxweynuhu qaadkii baa kamid ah wixii loo digdamiyay dam lahaa oo dawladda farmaajo lagu ridayay waxay ahayd dano shakhsi madaxweynaha hore u soo shaqeeyay weeye experience weeye dadku waxa aamineen madaxweynahooda kale madaxweynaha safaradiisu waa siyaado kumadda iyadoo aan 3 bilood 4 bilood hadda aan jirin madaxweynihii safarada waxa weeye wadka wax munaasib hadda ku amaaha hadii xaawilay baryo tago kuwale waa baryo tagi jireen laakiin arrinta niilka inuu dhex dhigo inaga Itoobiya xaq uma leh madaxweynuhu arrintan waa ku qaldayeen danta dadka kuma maqnayn qaraab tagay oo masaarida anagu jarismanihi waxna nagama gelin يا مساريد halka ka baxa uu yiraahdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka haya muddo 85 maalmood ayaa waqti dalku wajahayo abaara baasan sixir barar dhaqaale iyo khalkhal ka dhashay siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka 8 safar ku kala tagay wadamada Imaaraadka Carabta Turkiga Eritrea Kenya Djibouti Tansaaniya Masar iyo Uganda oo hadda ku sugan yahay dhammaan safaradani oo ku qotoba tallaabooyin diblomaasiyadeed ayaa abuuray kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo ku salaysan curfiga xiriirka caalamiga ee dawladaha u yaala haddaba shacabka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo aan la dhex qaadnay muuqaal baahiyaha Sahal Cable ayaa ficil kasta iyo hadal kasta oo ka dhashay safarada madaxweynaha oo in ku ah dawladnimada Soomaaliyeed siyaabo kala duwan uga hadlay sidii halku dhiga siyaasadda Xasan Sheekh oo ah Soomaali heshiisa dunida heshiis la marka waxay ahayd inuu wax walba waxay leedahay step iyo fundamental waxay ahayd in Soomaaliya horta dib u heshiisiin ka bilaabo oo uusan bilaabin safaro ka baxaya kharashaad inuu caadi ahayn dadka masaakiinta oo danyarta kharashaadkoodii cashuurtii ayaa waxa weeye uu safar ugu baxaya dalxiis xamala marka waxaan jeclaan lahayn in madaxweynuhu waxa weeye ka baanaadago danyarta Soomaaliyeed waxaan ku samaynayaa waxa weeye dano waxa weeye natiijooyin wanaagsan oo positive oo ka dhalanaya ma jiraan madaxweynuhu isaga dantiisa soo socda waxa lagu leeyahay Tansaaniya hadda waxa jiray hoteelo isagu lahaay hore looga xiro soo furtay ma garad hoteeladii iyo ganacsigiisii uu wataa madaxweynuhu qaadkii baa kamid ah wixii loo digdamiyay dam lahaa oo dawladda farmaajo lagu ridayay waxay ahayd dano shakhsi oo ku tilmaami karnaa waxa ummadda Soomaaliyeed oo waxa weey u dhaartay oo waxa weey kitaabka jaamaca u maray oo u qabanayo ma jirto madaxweynuhu waa saxan yahay inuu baxo oo dunida soo wareego oo dadka wax u doono oo dariska iyo dadka nabadeeyo inta xasan yahay waana ku taageeraya waana ku saboodaya xasan waa dawlad kaliya oo shacabka ay soo doorteen anigu waxaan ku dhaliilayaa inuu inoo soo jiido dhibaatahan inoo dhaweyn waa dhibaatada Masar iyo wabiga Niil Abyad iyo Niil Ahmar dhaxta Itoobiya iyo Soomaaliya inuu anaga arrintan dhex dhigo noo soo jeedo xukuumadda madaxweynaha arrinta ku dhaliilaya la sidiisa kala haduu bini'aadamka u shaxaa tagayo dadkiisa uu soo baryayo hadii xaawilay baryo tago kuwale waa baryo tagi jireen arrinta safarka madaxweynaha waxaan u arkaa waqtigan inaan ahayn waqti munaasib ah wadanka abaaraha ka jira siyaasadda gudaha ma fadhido maalintii dhaweyd ee baarlamaanka la ansixiyay wasiirada la ansixiyay tabashooyin badan baa jira madaxweynuhu markuu siyaasadda arrimaha gudaha oo wadanka uu dhiso uu dibadda hagaajin karaa waqtigan safaradu waxa weeye daruuri ma aha ee Itoobiya oo kale wadan daris nala abeeheedo noo dhow oo Masar markii la fiiriyo nooga dhow khilaafaad buu ka abuuray waa arkaysaa isteediyadii baa si dhumaalaysiya ugu dhoofaya Addis Ababa waxaas madaxweynuhu isaga sababay keenay waqti xaadirkan waqti ku haboon safaro noocaas ma jiraan taa kale madaxweynaha safaradiisu waa siyaado ma garatay marka wadanka abaaraha ka jira waa ogtiin xuduudii xaaladeeda waa ka warhaysaan waxa soo in dib loo fiiriyo dib saxiitaan lagu bilaabo wal raa xukuumadda iyadoo aan 3 bilood 4 bilood hadda aan jirin madaxweynihii safarada waxa weeye wadka wax munaasib hadda ku amaaha waxaan leenahay isteediyada iyo dawlad goboleedyada iyo waxyaalihii markii hore laga raystay xilligii farmaajo baa keenaysa hadda ma taqaanaa safaradaas inay salaayaan madaxweynuhu safarada joojiyo oo uu dhimo safarada siyaasadda wadanka uma fiicna siyaasadahan Soomaaliya heshiis sameeyo dunida heshiis la horta Soomaaliya heshiisiyo sida waxaan arkaa madaxweynaha hadda shaqooyin baa xal la hor yaala inuu safaro iyo dhul kala duwan dhulkaani muddo badan buu hadda kala xiraa dawlado badan oo wada shaqayn jiray bayna wada shaqayneen hadda muddo dhowr sano ahayd marka waa u arkaa anigu inay tahay shaqooyinkiisa hor oo la inuu safarada badan ay siiyeen inuu maro saasaan u aragtida حيال الدوادن كعبارة يدبوا كجدا ونوجنا هاي لكن عقباتها سي كلا وسي على جوحي هايين إن الدولة ده إن نسكو حرينا وده شقين جري يقول كي عالمي جا وده شقين جرينا وده شقينين مدوين كهذا مدحوين كوري شوي
marka madaxweynihii in bay xiriir lahaayeen inna way kala xiraayeen marka madaxweynuhu hadda dhulka uu tagayo waa dhulkeenu kala xirayn ku xilli kala guur ku jira madax xiraakada horeysay waa soo shaqeeyeen madaxweynahana waxaan dadka rabaa inay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan madaxweynuhu waxay kooban magacaabay golaha xukuumadda baarlamaanku ansixin waayay iyo safarada dibadda uu ku mashquulay madaxweynaha la soo dhaweeyay waqtigiisana hala sugo abaaraha wuxuu ergeyba u xilsaaray ergeyba hawsha ku jira waa si fiican bay u socotaa dadkana qaabkii loogu talagalay wax ku socdaan madaxweynuhu ku mahadsan yahay shaqada hadda uu wado waa inta dhiman oo dhammaystiray madaxweynaha hore u soo shaqeeyay weeye experience weeye siyaasadda gudaha uu habeeyo waddanka abaara baxsan baa ka jira dadka uu qabto ma fahantay dawladdii xukuumadda markuu dhisay uu nidaamiyo kabacdi inuu safarrada aado ma fahantay laakiin dawladdii bay isagoo dhisin buuxa aaday safarro loomana baahnayn dowladaan dhisnayn ma jira yaa dawladda hadda un baa la magacaabay dee wasiirrada iyo xukuumaddaba laakiin 6 safaroo hore u baxay muxuu ku maqnaa madaxweynuhu safarro khaldan bay ahaayeen dee danta dadka kuma maqnayn qaraab tegey hadda waxaan kula talinayaa inuu dadkiisa wax u qabto yaa oo maamul goboleedyada la heshiiyo oo Itoobiya la heshiiyo oo masaarida annagu darismanihiye waxna nagama geline yaa masaarida halka ka baxa uu yiraahdo Yaxya Faanfaan wararka Sahal Cable magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ma ogtahay macmiil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin faroom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobintu oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh